dhaqaalaha markii aanu nimidnay 27kii Juun 2021 waxaanu u nimidnay degmada Boorama oo lagu leeyahay deyn ka badan 200 oo kun oo dollar. xafiiskana fadhiyay ma kuwa nagu kiro wala deegaanka dawladda hoose naga bixisa intaan taliya qaybiye anigu aan soo marayay haddana dhaa shanta gudoomiye degmo ka kooban yahay gobolka gudoomiyaha ugu waxqabad badan ugu karti badan aan sidii wax weeyaan gudoomiyaha ugu dacsan in lagu kalsoon yahay waa aragteen aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ilaa imika shaqada ay qabteen halkan waxay tahay waa halka keedka balse waxa awal lagu dhibaatoon jiray in qofkii uu ku dhibaatoodo helitaanka dhiigga waxay haydeenay mishaarkan u baahannahay iyo wixii oo dhan iyada nasiisa qalabka iyo dawooyinka bukaanka siinayna waxa soo dhan iyada noo keentay wixii aan u baahannahay iyada noo keentay Boorama waa magaalo madaxda gobolka Awdal waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan leh Somaliland. Magaaladan ayaa 31 sano ay jirtay Somaliland waxa ay ku tallaabsanaysay isbeddelo ay ka mid yihiin dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo sidoo kale dhammaan baahiyaha arrimaha bulshada. Muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa daawadayaal isbeddel intee leeg ayaa ka hirgalay magaalada sanadkii ugu dambeeyay ee ay joogeen golaha deegaanka ee cusub ee la doortay 27kii Juun 2021 isla markaasina uu hogaaminayo duqa degmadaasi Maxamed Axmed Warsame Baradho. runtii waxaan maanta ka joognaa muddo sanad ah oo ku beegan 27kii Juun 2021 ay ahayd markii aan xilka degmada la wareegnay golaha iyaga cusub. Waxaan isleenahay muddadaasi sanadka ah waxaa jira isbeddel la taaban karo oo Ilaahay uga mahadinayno iyo bulshada ku nool degmada ee cashuur bixiyaha ah oo aanay la'aantood suura gasheen inay noo qabsoonto hawshaas. waayo annagu waxaanu nahay adeeg bixiyayaal waxaanu u adeegnaa bulshada degmada ku nool. taasina waxay ku suura gashay haddii aan la helin cashuurtaasi ummaddu bixisay suuragal marnaba may noqoteen in adeegaasi bulshada aanu hayno ee kala duwan aanu fulino. waxaan isleeyahay waxa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu wax ka qabanay jidadka. sababtuna waxa weeyaan markii aanu xafiiska nimidnay waxaa jirtay baahi ay bulshadu u qabtay oo wadadii number 1ka Boorama iyo wadooyin fara badan oo kale oo burbursan. sidaa darteed waxaan muhiimadda siinay in aan la helo magaalo leh wadooyin wanaagsan si ay markaa u fududaato isku socodkii iyo dhaqaalihii ummadda. waxa kale oo muhiimadda siinay markaa nadaafadda. waa inta badan dawladaha hoose adeegyada ay bulshada u hayaan waxa ugu muhiimsan ee la taaban karo waxa ugu horeeya waa jidadka, waxa weeyaan amniga, waxa weeyaan arrimaha bulshada oo noqonaya caafimaadka, waxbarashada iyo meelaha suuqyada hadday noqoto sariimadaha, kawaanka, hadday noqoto sayladda. dhaqaalaha isbeddel baa ku yimiday. xarunta dawladda hoose laftarkeega isbeddel xooggan baa ka socda muddada aanu joognay socda. marka waxaan ka xusi karaa run ahaantii muddada sanadkan joogno waxaa imika Ilaahay mahadiya inay dhammaadeen 3 wado oo ah 4 kiiloomitir iyo badh. wadooyinkaasi waxa weeyaan wadooyin aan ka dhisnay cashuurtii ummadda laga qaaday iyo wadooyin mashaariicda la iska kaashado ay iska kaashadaan dawladda hoose, dawladda dhexe iyo hay'adaha UN-ka ay ku midoobay JPLG-ga la yiraahdo. marka 4 kiiloomitir iyo badh wado ah ayaa imika inoo dhammaystirmay. waxa kale oo imika gacanta lagu hayaa sidii loo dayactiri lahaa wadooyin badan oo burbursan. waayo suuragal ma aha in sanad walba wadooyin hore oo la sameeyay dib loogu noqdo. laakiin waxa muhiimaddu tahay si wadooyin cusub oo fidinta magaalada la jaan qaada aynu u samayno
in waddooyinkii hore ee jirayna aynu dib u habeyn ku samayno si waddooyin cusub markaa loo samayn karo markaa 4 kilomitir iyo bar waddooyina ayaa iminka inoo dhammaystirmay waxaana rajaynaynaa sanadkan 2022 in iyagana haddii ilaahay idhaahdo aan isleenahay intaa iyo in ka badanba aad fulisaan oo waddooyina haddii ilaahay idhaahdo dhaqaalaha markii aanu nimidnay 27 Juun 2021 waxaanu u nimidnay degmada Boorama oo lagu leeyahay deyn ka badan 200,000 oo dollar oo ay shaqaaluhu leeyihiin 3 bilood oo mushahara dhammaan adeegyada cidda xiriirka la leh dawladda hoosana hadday noqoto shidaal iyo hadday noqoto leyd iyo hadday noqoto biyo iyo hadday noqoto shaqaale cid kastaaba ay leedahay 3 bilood waxaanu go'aansannay inaanu sida ugu dhaqso badan u bixinno deymahaasi lagu leeyahay dawladda hoose waayo haddii aan deymahaas la bixin cidda bulshada ah ee adeeggaas siinaysa waxay noqonaysaa inay culays nagu noqoto inaanu sii qaadano deymo fara badan annaga oo aan bangina deyn ka amaahan cid kalena deyn ka amaahan waxaanu u dhabar adeegnay si cashuurtii ummadda laga qaadayana sida ugu wanaagsan loo soo ururiyo deynta lagu leeyahay sida ugu wanaagsan loo maareeyo sidii marba aan wax u bixinaynay waxaanu soo gaarnay maanta oon sanad joogno in boqolkiiba 80 ama 90 in ka badan deymahaasi aanu bixinay waxa kale oo ilaahay mahadiya in dhaqaalihii loogu talagalay dawladda hoose oo daraska miisaaniyaddu ahaa 20 bilyan sidaan hore u sheegay saddexdii sano ugu dambeeyay 2019 20 iyo 21 saddexdaas sano aanay dawladda hoose ee Boorama u suura gelin in daraskii miisaaniyadeed ee ay darastay ay gaadho laakiin waxa ilaahay mahadiya in 6 bilood ee dambe ee aanu joognay sanadka 2021 aan cashuurtii la filayay ee 20 bilyan ahayd aanu gaadhnay 19 bilyan halka 6 bilood ee naga horeeyayna ay gaadheen golihii naga horeeyay 8 bilyan taasi oo ka dhigaysa sanadkii 2021 in dhaqaalaha soo baxay oo ahaa 27 bilyan oo daraskii miisaaniyadda ee 2021 aanu kor u dhaafnay 7 bilyan oo u dhiganta lacag 800,000 oo dollar ah taasi markaa waxay keenaysaa in daraska miisaaniyadda 2022 ay noqoto taanu ku odarasnay in la gaari karo 37 bilyan oo degmada Boorama waxay noqotay degmada soo kordhisa daraskii miisaaniyadeed ee ugu badnaa boqolkiiba 82 ayaan kordhinay taasina waxaan rajaynaynaa sida iminka ay xaaladdu ku socoto inaan gaari karno haddii ilaahay idhaa 37 bilyan oo miisaaniyaddii aan ballan qaadnay cashuurtii aan ummadda ka qaadaynayna waxaan samaynay in la tira koobo dhammaan laamaha xiriirka la leh si cashuurta aan doonayna inaan gaadhna ay ugu salaysnaato xog saxa iyo data saxa waxaan tira koob ku samaynay bajaajyada degmada ka shaqeeya oo marka hore 318 bajaaj ay cashuur ka soo xiran jirtay maanta waxaan ognahay tirada 1500 oo bajaaj oo degmada Boorama ka shaqeeya in ka badan boqolkiiba 50 ay cashuurtii ka soo korodho oo ah 3 jeer laab intii awal aanu ka heli jirnay 300 ee bajaaj ahayd maanta 900 oo bajaaj ay cashuur ka soo xirooto waxaana rajaynaynaa in sanadka inta ka hadhay aanu gaari doono 1500 waxaanu tira koobnay meheradaha magaalada Boorama ku yaala ee cashuurta bixiya oo aanu ognahay inta meheradood ee magaalada ku yaal iyo inta cashuur bixisa iyo cashuurta ku waajibta oo aanu liisankii si fiican uga soo xiraynay iminka waxaan uga mahadnaqayaa hay'adda UN Habitat oo naga caawinaysa tirinta guryaha iyo jagooyinka oo property registration-ka ah in 22 bishan aan ku jirno iminka June ay bilaabanto heshiiskaasi aanu galnay aan rajaynayno inaan tira koob rasmiya ka helno inta guri ee magaalada ku yaala iyo inta jaga ee ku taal si cashuurta aynu ku tiirsannahay ee liisanka iyo ardiyadu ay noqdaan wax saxa oo lagu talageli karayo oo cidda naga dambaysa ama golaha deegaanka naga dambeeyana ay u heli karaan xog rasmiya oo ku go'aan qaataan waayo degmo aan aqoonin inta liisan ay qaado inta bajaaj joogta iyo inta jago ee ku yaala iyo inta guri ee ku yaala suuragal noqon mayso in loo daraso miisaaniyad ama wax qabad bulshada loo fuliyo haddii aynaan tiro rasmi ahayn waxaan rajaynaynaa
inaanay cidda naga dambaysa ku dhicin inay zero ka soo bilaabaan oo tirakoob cusub sameeyaan laakiin tirakoobkaasi aan rajaynayno inaan uga tegi doono oon ku wareejin doona haddii la idhaha golaha naga dambeeya marka isbeddelka dhaqaaluhuna waa isbeddelkaasaa yimiday waxa kale oon xusi karnaa in master balaankii aanu fulinay master balaankaas oon iska kaashanay wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose oo aanu ku bixinay lacag ka badan $40,000 oo loo sameeyey waddo ring road oo magaalada ku wareegta iyo waddooyin kale oo 24 iyo 18 maadaama magaaladu ay kordhaysana imika la hayo meesha degsiime ah meesha iskuul laga dhisayo meesha garoon noqonaysa iyo meel kasta oo adeeg bulsho loogu talagalay maadaama magaaladu ay fidayso waa in qorshaha iyo magaaladu kala horeeyaan sidaan dhowr jeer hore sheegnay marka qorshahaasina imika uu diyaarsan yahay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo qorshe la mahadiyo oo ummaddu ka faa'iido haddii ilaahay dhanka kale wada shaqayn inteleg ayaa haddaba ka dhaxeeya maamulka gobolka Awdal iyo kan degmada Boorama maxamed axmed caalim tiimbaro barasaabka gobolka Awdal ayaa ka warbixinaya wada shaqaynta tooska ah ee ka dhaxaysa maamulka degmada bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walxamdulillahi rabbil caalamiin mahadda maanta ilaahay baa iskale ilaaha inagu arsaaqay nimcada iimaanka ee islaam inaga dhigay maanta waxaa gebagebe ah muddadii golaha deegaanka la doortay oo ku aadan maalinta xilka la wareegana ku aadan 27-ka bisha Juun haddii aan idinka warramo sanadka hawshooda iyo waxay qabteen iyo xiriirka iyaga intaba waxaad moodaa nimankaasu dardar cusub ay la soo galeenoo ay kulle way idinka warrameen magaalada MCA badan waxbay ka qabteen qaar cusub way dhiseen waddooyinka waa aragteen oo dhiinaba ku soo aragteen ay muddadaas sameeyeen sida qaybta booliska hataa gashaan dee intii ingiriiska kaga tegay un baa haysa laakiin inta ay ku dareen iyo sida imika ay u qurux badan tahay waxaa hirgeliyey golaha deegaanka cusub annaga gobol ahaan xiriirka iyagu dhowr meelood buu iska soo galaa dee nabadgelyada waanu iska soo gallaa si wanaagsan ayaanu uga wada hawlgalaa nabadgelyada guud ahaan gobolka iyo gaar ahaanta degmada xagga waxqabadka xafiiskan aan fadhiyaaba imika waa nagu kiro golaha deegaanka dowladda hoose naga bixisa aad buu xiriirkaygu wanaagsan yahay waa niman aan is leeyahay shaqadooda intii ilaahay karsiyey si wanaagsan bay uga soo baxeen waxaan is leeyahay waa kugu dhaliili kartaan oo iman ka muuqdaana ma jiro kolley hawla dun iskama dhammaato oo marka hir markii la gaadho mid kale haddee muuqdo kolley marka wax la qabto wax kalumaa sii muuqanaya way bal caafimaadkiina sanadkan la aragiyo sanadka dambena dee intaa in ka saayida ayuun baanu ka filaynaa haddaan idhaha shanta guddoomiye degmo ee ka kooban yahay gobolku guddoomiyaha ugu waxqabad badan ugu karti badan aan sidii wax weeyaan waa guddoomiyaha ugu dacsan intaan arkayey in kulli biliiska soo ahaa xagga macnaha waxtarka biliiska waa ninka ugu waxqabad badan haddaan qiimeeyo guddoomiyaha degmada Boorama iminka jooga wey sababtoo ah dee qofku wuxuu qabtay waa kan baa la idhaha in la tilmaamaa wanaagsan guddoomiyuhu intii aan joogay halkan oo muddo sanad iyo bila iminka isagaa hoolka weyn ee ciidanka booliisku seexdo guddoomiye isaga noo dhisay waa kow hoolka weyn ee maxaabiista ee dayrka leh ee aragteen maxaabiista ku xafilantahay iminkana isagaa noo dhisay musqulaha oo baaba'sanaa burbursanaa oo digar ahaa isagaa noo dhisay oo noogu bedelay 8 musqulood oo iminka halkaas kulli aad soo aragteen oo maxaabiistu ay markii u horreeyey ee maxbuus helanay inuu meel ku maydho oo biyihii sare iyo kuwii hoose way ka shaqaynayaan isagaa noo soo geliyay sidoo kale saldhigga bariga hoolka weyn ee ka ma garanaysa
ciidanka booliiska ciidanku howl ballaaran oo kanoo kale ah isagaa noo dhisay wuxuu kaloo noo ballan qaaday gola deegaan ahaan iyo dowlad hoos ahaan inay dhul nooga iibiyaan oo koonfurta magaalada oo ka dheer saldhigyada booliiska oo magaaladu ay ku sayfinayso oo isku xidhmaysa goryacado halkaana saldhig inuu nooga dhiso dhul ahaanna noo iibiyo dhismahana noogu daro taana uu noo ballan qaaday waxaa kaloo markhaati kana waxqabadka ballaaran inuu ka wado degmada uu xukumo oo isagoo intaa joogay ama golaha deegaanka oo iminka intaa joogay iyo xoogayahoodu indhihiidaa ku soo aragtee waxay qabteen saa daraaddeed waxaan u aqoonsanahay shakhsi xalaala oo muwaadina oo u soo jeeda shaqadiisa oo diyaara waxqabad maxamed axmed warsame duqa degmada boorame ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixinayaa kaalinta ay dowladda hoose ee degmadu ay ka qaadatay dhinacyada arrimaha bulshada ee ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale amniga waxaan ku dayri lahaa intaan arrimaha bulshada aanan ka bixin laba qodob oo muhiim aad u ah oo ay kow ka tahay in gegadii xoolaha oo iyada laftirkeegu ahayd meel ay iska aanay ka socon hawl yacnihii xoolaha lagu kala iibsada ay ka socoto laakiin aan ahayn meel rasmiya oo ay bulshadu si saxa u leedahay oo lagu adeegto taasi oo dadna ay dhinacya ku lahaayeen inaannu samaynay in hay-adda Save the Children oo African Development Bank bangiga horumarinta Afrika iyo IGAD in mashruuc ballaaran ay ka hirgeliyeen oo aanu ka codsannay markii aanu aragnay muddo 7 cisho markii aan xafiiska joogay inaan booqanno laamahaasi bixiya adeegyada hadday noqoto kawaanka xoolaha gowraca iyo hadday noqoto sariimadaha iyo hadday noqoto sayladda xoolaha markii baahida aan soo aragnay waxaan go'aansanay inaannu ka codsanno sida ugu dhaqso badan in wax looga qabto baahiyaha jira waxaan uga mahadnaqayaa ciddii sida degdega uga soo jawaabtay oo ugu horeysa hay-adda Save the Children oo fankiisana ay bixisay bangiga horumarintu in gegadii maanta laga dhisay oo dadkii lahaana aanu ugu bedelnay dhul kale dhulka intii aan anagu lahayna lagu daray laga dhisay xaruntii lagu baadhi lahaa xoolaha caafimaad qabkooga iyo in laga dhisay harkii xooluhu harsan lahaayeen oo qaybtii looda in laga dhisay dararkii xooluhu ka cabbi lahaayeen in laga dhisay suuliyo 10 suuli ah oo u kala qaybsan ragga iyo haweenka in laga dhisay meelihii xoolaha laga rari lahaa in meelihii xoolaha ka lagu karantiimeyn lahaa oo ah mashruuc ballaaran oo iminka dhammaystirmay oo aad arki kartaan in gegadiina ay sidaa u dhammaystirantay waxaanu wax ka qabannay sariimadaha oo aanu dib u habeyn ku samaynay hadday noqoto jiingadihii biyaha ku daadinayay iyo hadday noqotay burburkii soo gaadhay iyo hadday noqotay sariimadda ugu ballaaran boorama oo aan lahayn biyo oo aanu biyihii dib ugu soo celinay waxqabadkaasina sariimadda uu ka qabsoomay kawaanka xoolaha isbeddel fara badan baan ku samaynay deyrkiisa oo dunsanaa wax badan baan ka qabannay oo dib baanu u dhisnay meelihii xoolaha lagu qalayay iyo meelihii dhiiggu ay tegayey iyo meeshii uuska meel walba in sidii loogu talagalay loo adeegsado iminkana ay tahay meel si wanaagsan u shaqaysa oo xoolaha lagu qalaa caafimaadkoogii lagu soo hubiyey waxaa wasaaradda xanaanada xoolaha ay nagala shaqaysay fayadhowrkoogii iyo nadaafadoodiina aanu ka shaqaynay marka isbeddelkaasina wuxuu ku yimid qaybtaa sariimadaha iyo sayladda xoolaha iyo kawaankii gowraca run ahaantii muddadaasi aanu joogno ee sanadkaa caafimaadka waxaan muhiimadda siinay maadaama MCH-yadu ay yihiin meelaha primary health care-ka ee ugu muhiimsan ee u adeega dadka jilicda san leh sida hooyada iyo dhallaanka waxa weeyaan waxaanu soo kordhinay MCH-yadii hore ee jirayna inaanu taageerno MCH-yadaasi waxaanu ka taageeri jirnay awalba qalabka nadaafadda waxaan ka taageeri jirnay nadiifisooyinka waashmaanada laydhka biyaha MCH-yada cusub laftarkooga waxaanu soo kordhinay MCH-ka Turqayle oo cusub oo imika aanu dhisnay MCH 8 qol ah oo aanu ka dhisnay Tulli iyo MCH hore u dhisnaa oo ku yaalay Sheekh Nuur waa MCH-ka ugu ballaaran ee xaafadaasi madaxtooyada agteeda u adeega waa MCH aanay cid kale wax taageero ah u geysanin wuxuuna ka mid ahaa MCH-yadii inta la dhisay aanay oolin qalabku aan lahayn shaqaale aan lahayn dawo sidaa darteed muddada aanu joognay waxaanu garannay in MCH-kaasi loo sameeyo 16 qof oo shaqaale ah in dawada ku baxaysa annagu aanu geynay in dhammaan qalabayntiisa oo dhan ay dowladda hoose bixisay inuu MCH-kaasi maanta u adeego
dhallaanka iyo hooyooyinka u baahan in loo adeego. waxaan qalabka iyo daawooyinka waxaan u baahannahay oo dhan waxa bixisay dawladda hoose maxay haydeenay mishaarkan u baahannahay iyo wixii oo dhan iyada na siisa qalabka iyo daawooyinka bukaanka siinayna waxaas oo dhan iyada noo keentay wixii aan u baahannahay iyada noo keenta MCH-kana xaafadan xoog ba ugu baahnayd marka caafimaad ahaan ma haysanin wax caafimaad oo marka hore ku dhisan intan deegaankan iyada na siisay aad ba u mahadsan tahay dawladda hoose degmada Boorama. qolyahan dambe ee sanad ka jiray runtii waxaana u badan oo muhiim ah marka ay hawshaadu fiican tahay waad helaysaa kalsoonida dadweynaha waa kugu kalsoonaanayaan iyaga suuqa ka amaanaya ama sheegaya waxqabadkii aad samayseen dhaliilahagana way sheegayaan qoladan dambe ee hadda sanadka haysay inta badan anigu wanaag mooyaane ma maqal dadweynaha oo dhaliilaya waad arkaysaa magaalada of course baylaha badan baa ka jiro jidadku ha u badnaadaan qorshaha dhulka ha u badnaada ku xigro dhulka la kala iibsan jiray ama jidadka la iibin jiray ama iyagoo la qalqaloocin jiray waxoogeega musuqmaasuq ku jiray ha noqoto way ku badnaan beriyihii hore intani markaa sanadka aan jiray dadweynaha kama maqal wax wanaagsan ay leeyihiin waa shaqo fiican bay qabtaan mooyaane dhaliilo fara badan uma arag bashar baan nahay oo khaladaad waan gelaynaa ilaahay un baan gelin rasuulkii baa geli jiray oo waxyi lagu toosin jiray waaba innaga oo waa weliba macsuum ahoo ilaahay dembigiisa dhaafay ayaa haddana meel ilaahay qur-aanka aynu ku aragnay lagu toosin jiro suuradaha qaarkood taa iyo taa waad ka leexateena sidaa dhaha loo odhan jiray marka bashar baynu u nahay khaladaadka maamuladanna maamulo qur-aan lagu wada hagaya maaha oo dowladdii adduunyada ugu fiicnaydi inta tabaariikh bani aadam jiray oo dhani dowladdii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa dowlad samada laga hagayay oo waxyi uun ku socotay wax kale aan ahayn taasaa haddaa rasuulkeygii loo digaya marmar ama ambiye rasuulsheegi way ka qayb galaan waxyaabaha kale ee maamulada way ka qayb galaan oo dowladaha meelaha dowladdu joogto dhan iyaguna kama maqna ilaahay maxaan u malanay iyagu way sheegayaan magaalada Boorama u badan yihiin oo dee populationkan degmada Boorama badankeeda isugu soo ururay miyana waa jira miyigana meelaha ay wax qabteen waa arkay wadooyin ay jidcado ay jeexeen waa arkay laakiin sida kalsoonida dadka haddaad eegto runtii waa lagu kalsoon yahay aad baa loo jecel yahay ilaa imaka waxa isdhaafinayaan oo musuqmaasuqa lama arag dhul ay isdhaafinayaan oo ay dhul dan guud ah oo ay iibinayaan sidii berigii hore la sheegi jiray kuma annaan maqal dowladda hoose ee Boorame ayaa sidoo kale muddada sanadka ah waxay golahaasi ka hirgeliyeen isbitaalka guud ee magaalada Boorame qayb ama dhisme gaar u ah kaydka dhiigga kaasi oo loogu talagalay in dhiigga lagu kaydiyo isla markaasina lagula tacaalo bukaanka goobtan ayaa dowladda hoose ay hirgelisay iyada oo kaashanaysa bahda caafimaadka ee Boorame waxaanu markii ugu horeysay gobolka Awdal ka sameynay in kaydka dhiigga oo aan hore uga jirin oo gabdho muxsiniin oo qurba joogii ay ku soo caawiyeen gobolka inaanu annaguna u dhisno xaruntii qolka ahayd ee lagu fulin lahaa kaydkaasi dhiigga waana ilaahay mahadii adeegaasina uu shaqaynayaa maanta waxaanu ka qayb qaadanay arrimo fara badan oo caafimaadka hadday noqoto dhakhtarka weyn iyo hadday noqoto dadka dhibaataysan ee awoodi waaya inay caafimaadka iska bixiyaan oo aanu wixii tabarteeda annagu ka bixinno marka adeegyada caafimaadka noo shaqeeyana kaalintaasaan ku leenahay magacaygu Cabdiqani Ciidulus Cabdillaahi waxaan ahay shaqaalaha goobtan Boorama Blood Bank waqti xaadirkii la furay meesh goobtan waa bishii 9aad 2021 bishii 9aad waxaana la furay goobtan inta ay golaha cusbi ay joogeen baa la furay maayir maxamed axmed warsame baradhe waa maayir aan aad iyo aad wada shaqayn fiican aanu leenahay oo kana warhaya goobtan iyo hawlaheega inta uu golaha cusbi joogo wallaahi faa'iido fara badan oo kamida qaybtan kaydka ayaanu ka haynaa halkan waxay tahay waa halka kaydka balse waxa awal lagu dhibaatoon jiray in qofkii uu ku dhibaatoodo helitaanka dhiigga balse laakiin hadda waxa noo fududaatay inaanu dhiigii kaydsanno oo meeshii locationkii loogu talagalay lagana helo ilaahay baa mahadle noo suurtageliyey noona keenay
maayarka cusub iyo golahan degmada cusub ilaahay baan uga mahad celinaynaa halkani waxaa socota hadda waqti xaadirkan shaqadii ee lagu guda jiraa marka shaqadii baan leenahay kusoo dhawaada runtii hawsha ugu muhiimsan ee degmadu ay hayso waxaa ka mid ah kor u qaadista amniga waayo haddii aan amni la helin lagama shaqayn karo horumar oo sidaynu ognahayba amniga ayaa ka horeeya iimaanka sidaa darteed waxaan muhiimad gaara siinay sidii kor loogu qaadi lahaa amniga degmada waxaanu la shaqaynaa laamaha kala duwan ee amniga ka shaqeeya hadday noqoto taliyaha qaybta hadday noqoto xarumaha booliska ee ku yaalla degmada waxaanu soo kordhinay muddadaasi aanu joogno isbeddel fara badan oo aanu ku samaynay taageeradii aanu siin jirnay saldhigyada booliska waxaanu dhisnay saldhig cusub oo saldhigga Boona waxaa jira 2 saldhig oo cusub oo Boorama ku soo kordhay oo uga mahadnaqayno taliyaha guud ee ciidanka booliska iyo UNDP waxaanu bixinay dhulkii laga dhisay 2 saldhig ee cusub saldhigyadii hore isbeddel fara badan ayaa ka muuqda oo taliyaha qaybtu hormuud ugu yahay in wax badan laga qabto waxa lagu sameeyay inaan ka dhisno 2 saldhig saldhigga dhexe Boorama iyo saldhigga barigaba maadaama ciidan fara badan oo boolis ay soo qalin jabinayaan meelihii ay seexan lahaayeen oo aan u dhisnay hoolal temporary oo imika ay ciidamadu seexdaan waxaanu ku sameynay xarunta miiska saraakiisha oo meel saraakiishu ay fadhiisataa inaanu hadh u sameynay 6 suuli ayaanu imika ka dhisnay saldhigaasi dhexe qayb maxaabiista iyo bulshada in la kala xidho oo shabag baanu ugu sameynay si bulshadu ay uga xidhnaato marka amniga muhiimadda koowaad baan siinay waxaana weeyaan in saldhigyadaasi cusub aan dhisnay imikana qaarkood ay noo qorshaysan sida saldhigga magaalo cad 2 saldhigna aanu dhul siinay saldhigyadii horena aanu taageeradaasi siino marka amnigiina isbeddel wanaagsan ayaa ka socda haddii la haydhaa waxaan rabaa kelmad kooban inaan ka jeediyo waxqabadkii sanad guurada golaha deegaanka ee cusub ee degmada Boorama runtii waxaan odhan karaa haddaan soo kooboon hal erey ku soo koobo waa golo dhalinyaro aqoon-yahana runtii bulshaduna ay in badan u helanayd inay helaan golo noocan oo kale ah markaan qiimeyn guud ku sameeyo golaha niman dhalinyaro tafaba iyo ay degmadu dooratay oo runtii u shaqaynaya degmada goluhuna wuxuu iska dhex doortay maayir iyo maayir ku-xigeen oo runtii xogayuhuna soo galayo oo dowladda dhexe ka socdo oo markaa fulinta la isku dhaca guud ahaan markaa golaha deegaanka degmada Boorama haddaan qiimeeyo qiimeyn guud aan ku sameeyo sanadka ay joogeen marka aynu ka hadlayno si guud aan u qiimeyno wuxuu ahaa golo xasilan oo dhexdiisa buuq ku yar yahay uu hogaaminayo markaa maayir aad moodo inuu yahay nin aad u degan oo aqoon leh run ahaantii markaan ka hadlayo si guud xarumaha bixiya adeegyada arrimaha bulshada oo ugu horeysa waxbarashadu waxa ku yimiday isbeddel la taaban karo oo muddadaasi aanu joogno inta badan waxaanu ka taageernay in la dhiso iskuulo cusub oo waxaanu dhisnay 2 kalaas oo aanu ka dhisnay Faaraxyood oo iskuul cusuba waxaanu dhisnay 2 kalaas oo aanu ku kordhinay iskuulka Carro Qoolaab waxaan dhisnay 1 kalaas oo lagu kordhiyay Abase waxaan dhisnay 1 kalaas oo aanu ku kordhinay dugsiga hoose ee Dudiid waxaan dhisnay 1 kalaas oo iskuulka Tulli lagu kordhiyay muddada aanu joognay waxa soo kordhay kalaasyadaasi cusub waxaa jira iskuulo aanu repair garaynay oo dayactir ku sameynay waxaa jira in iskuulada kuraastu ay ku yarayd aanu gaarsiinay in ka badan 200 oo kursi waxaa jira gunooyin aanu siino maamulayaasha oo muddada sanadka ah aanay jirin hal bil oo ka baaqatay gunadii la siinayay maamulayaasha waxaa jira guno aanu siino nadiifisada iyo waashmaanada oo iyaguna ah 140 qof oo isku jira caafimaadka iyo waxbarashada oo iyaga laftirkooga aanay hal bil ka habsaamin oo dhammaanteed hela markaa dugsiyada cusub way soo kordheen waxbarashadiina dardar baan gelinay waxaan u magacawnay gudoomiyaha degmada ee waxbarashada
oo si gaara ugu tacalluqa arrimaha waxbarashada si wanaagsan bay markaa hawsha waxbarashaduna u socotaa taageeradaasna aanu ka geysanay maanta oo ay ku beegan tahay 27 Juun 2022 waxaa hal sano uu buuxsamay golaha deegaanka ee degmada Boorama haddaba muuqaalkeennan waxaynu ku eegaynay waxyaabihii u hirgalay duqa degmadaasi Boorama iyo golihiisa deegaanka muddadii sanadka ahayd ee ay hogaaminayeen degmadaasi run ahaantii waa muhiim waayo cidda bulshada shaqada u haysaa waa shaqaalaha dawladda hoose xarunta loogu adeegaana waa xarunta dawladda hoose muddadii aanu nimidnay waxaa iska bedelay dhismayaal cusub oo ku soo kordhay oo muhiim u ahaa shaqada iyo adeegga bulshada aanu u hayno waxaana kow ka ah inaannu dhisnay xafiisyadaasi arkiifyada ood arki kartaan isbeddelka ku yimiday iyo muuqaalkii ay lahayd iyo muuqaalka iminka ay leedahay taasi oo caddaynaysa in arkiifyadii xogtii muhiimka ahayd ee degmada aan u haynay ummaddani oo laga soo bilaabo 1946 ilaa maanta oo laga joogo muddo ku dhow 80 sano in faylashaasi aanay lahayn wax kategoriya ama kala qaybsanaan iyo nidaam ay u yaalaan iyo meel loogu hagaagayo oo ay baaritaanka ku qaadan jirtay shaqaalaha inay jawaanna ka soo guraan iminka inaan u samaynay arkiifyo nidaamsan oo sanad walba wixii la sameeyey buugga diiwaanka iyo arkiifyada la isla heli karo oo muddo kooban oo 15 daqiiqo aan ka badnayn uu qofku ku soo heli karo fayl kasta oo soo galay dawladda hoose laga soo bilaabo 1946 xilligii maxkamiyadda Ingiriiska ay ahayd Somaliland ilaa maanta oo faylashaasi hor yaalaan maanta saxiixana oo fayl kasta oo ka mid ah dawladda hoose galo arkiifyada isbedel ballaaran baa ku yimiday xafiisyada maamulka uu ka mid yahay xafiiskan aan fadhiyo iyo xafiiska xogayaha iyo maamulku waxa ka muuqata isbedel ballaaran oo u muuqda in xafiisyada wanaagsan oo ummadda loogu adeegi karaa waxa la yiraahdaa hugaagu uu kula bariyo taga sida aad u eegtahay waxa muujinaysa meesha aad fadhido iyo sida u eegtahay waxaan arkaynaa in isbedelkaasi yimid dhammaan shaqaalaha laftirkoodu in isbedel yimiday oo xilliga shaqada la soo galo iyo xilliga laga baxo iyo attendance ay yihiin wax lagu la xisaabtamo qofka shaqaalaha waayo cashuurta ummadda laga qaado ee lagu bixinayo in loogu adeego marnaba suuragal maaha in qof aan shaqaynin uu qaato waxaan rajaynaynaa nidaam shaqaale oo wanaagsan inuu xarunta iska bedelay marka dhismihii wax badan baa iska bedelay adeegii bulshada loo hayay wax badan baa iska bedelay waxaanu xakamaynay muddada faylku dhaxoolayo xafiiska oo aanu ku dabagalnaa cid kasta xafiis walba in waajibaadkiisa kaga guto muddo kooban waxaan rajaynaynaa inaanu sii dardar gelino haddii Ilaahay dhaahdo oo la yaqaano xafiiska aad shaqada u soo doonatay iyo inta cisho shaqada uu kugu qabanayo si muddo kooban uu faylkiina ugaga baxo haddii Ilaahay dhaahdo dawladda hoose marka isbedel ballaaran oo dhismo ah baa ku yimiday isbedel ballaaran oo shaqaalaha baa yimiday horumar baa yimiday waxaan rajaynaynaa roomaba maalin kaliya laguma dhisin inaanu muddada aanu joogno aan horumarino muddada sanadkaana waxa noo qabsoomay inta imika waxa kale oo gacanta ku haynay landscapingkii dawladda hoose iyo marmarkii la dhigayay iyo dhirayntii inay noqoto meel wanaagsan oo bilic leh oo ummadda loogu adeego haddii Ilaahay dhaahdo isbedelkaas ku yimid xarunta dawladda hoose haddii Ilaahay dhaahdo sidoo kale maamulka dawladda hoose ee Boorama ee ay horkacayaan xogayaha dawladda hoose iyo sidoo kale maayarka degmadaasi waxa ay kaalin muuqata ay ka qaateen isdhexgalka bulshada oo ay muhiim u tahay ciyaaraha waxaana ay dawladda hoose ee Boorama ay leedahay koox ku ciyaarta magaceeda muddada sanadkaasi ayaa dawladda hoose ee Boorama waxay sidoo kale ay martigelisay booqashadii madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo la muddo 2 maalmood ah booqasho ku joogay degmadaasi Boorama sidoo kale waxay degmada amase golaha deegaanka ee magaalada Boorama ay martigeliyeen kulankii jaamacadaha geeska Afrika ee qaybtooda waliba caafimaadka oo mid ka mid ah kulankooda sanadlaha ku yeeshay magaaladaasi intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa saaxiibayaal muuqaalkani gaarka ah ee aynu ku eegaynay muddada sanadka ay joogeen golaha deegaanka ee degmada Boorama waxyaabihii u hirgalay waxaana dadweynuhu ay golahaasi deegaanka uu hogaaminaya Maxamed Axmed Warsame Baradho ay ku ammaanayaan isla markaasina ay ku dhiirigelinayaan
in muddada sanadka ay gacmaha isku qabsadeen sidii ay wax badan uga qaban lahaayeen isbeddelka dhinaca waddooyinka iyo weliba bilicda.